wafdi uu hogaaminayay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Maxamed Mixile Boqorre oo weheliyo safiirka China u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo booqasho shaqo ku yimi Soomaaliland ayaa saaka subax hore u jarmaaday gobolka Saaxil magaalada Berbera waxaana kormeer ay ku tageen marsada dekada Berbera waxayna kulan la qaateen mas'uuliyiinta heer gobol iyo maamulka dekada Berbera waxayna kormeeriyeen in ku soo mareen marsada dekada Berbera halka ay maraakiibtu ku soo xidhaan iyo kuwa la rarayo xoolaha bagaashka iyo baabuurta iyo badeecadaha kala duwan ee dekada hegeesta kale halka iyana waxay soo kormeereen qaybta ugu ballaaran ee la dhigo kontiinarada oo ay dhisayso xukuumadda Soomaaliland hadal soo dhaweyn oo lagu soo dhaweeyay safiirka waxa ugu horeyn ka hadlay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Cidin wuxuu ka warramay sida ugu soo dhaweynayaan iyo waxqabadka la taaban karo ee ka hirgalay gobolka Saaxil safiirka China dalka China ka socda inaga soo booqday dalkan injaarka nahay Soomaaliya u qaabilsan China waxaan ku faraxsanahay inuu arko Soomaaliland iyo horumarkeeda diplomatka ay ku talaabsatay iyo khayraadka dabiiciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhigay iyo inay u baahan tahay in laga faa'iideysto oo dawladaha caalamku ay u soo jeestaan oo investment ay gashadaan marka waxaan leenahay safiir soo dhawow maariyaha dekada Berbera isaguna qaabilaad kadib hadal ka jeediyay soo dhaweyn ayaa tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay ama u danaynayo inay China door ka qaadato horumarka ballaaran ee ka socda gaar ahaan gobolka Saaxil waxaan maanta halkan aynu joognaa dekadii Berbera gudaheedii waliba qaybtii inagu aynu dhisanay baynu dhex joognaa awoodeena aynu inoo saamaxday inaynu dhisano safiirka iyo waftiga la socda Master Warsame Geeljire iyo saaxiibadii waxaan ku soo dhaweynayaa inay maanta inala joogaan dekada Berbera dekadan Berbera oo ah dekad qadiim ah oo muddo dheer adduunka ka caan ahayd iminkana magaceedii dib ugu soo noqday inuu ka caan noqdo iyo inay noqoto dekadaha ugu horeeya geeska Afrika ayaynu maanta ku soo dhaweynaynaa dawladda China waxaan rajaynaynaa inay wax badan oo horumar ah inagala qayb gali doonto oo ku saabsan dekada haday tahay sourceska kale inuu leenahay haday tahay free zonka iman doona airportka shidaalka waxaan rajaynaynaa inay wax badan waxay nagala qaban doonaan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda oo wafdiga hogaaminayay isaguna munaasabad hadal furitaana ka jeediyay munaasabadda ayaa tilmaamay doorka ay China ku leeyahay adduunyada isla markaana uu u danaynayo inuu maalgashi ku sameeyo Soomaaliland wafdigan China ee wato Warsame marka madaxda gobolkan ku soo dhaweynaya soo dhaweyntoodii waxay hadal oran lahayn inay yahiin anagu waan nidhi warnagii Warsame waxaan oran lahayn waan u sheegnay waan nidhi isna uu yiri marka sida ugu faraxsan yihiin sheeg marka sidoo kale isaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay barasaalka gobolka Saaxil Masa Jaamac wuxuu tilmaamay in soo dhaweynayaan safiirka China u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waftiga sharafta leh ee wasiirada dawlaha arrimaha dibadda safiirka China iyo waftiga kale wato magaalada Berbera ay maanta noogu yimaadeen halkaanu taaganahay waa dekadii magaalada Berbera aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gacmo furan baan leenahay waxaan u maleynayaa in imika dawladaha maalqabeennadu soo daba socdaan oo DB Wall urteedii la daba taagan yahay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa cid kasta oo shirkad oo ama maal gashanaysa ama shirkadaha wax doonaya aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa Xasan Faarax Qamaan Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland dekada Berbera